niman masaakiin oo dhulka fadhiya oo cunto yaray soo dawarsadeen soo urursadeen cunaya oo isku geygeyso ururisa ayaa isagoo faras qaaliya fuushan ayaa maalin la hadlayo kaalay nala cuntay bay ku yiraahdeen xasanow wuxuu ka baqay naftiisa ayuu kibir uga baqay inuu nimanka iska weyneynayo oo intuu faraskii ka soo degay oo dhulku fadhiyay ay dhulkay fadhiyeen la fadhiistay ayuu cuntadii ururiska ahayd ay cunayeen la cunay markuu la cunay ayuu yiri hadaba waad sharfideen anna waan idin sharfinayo maalin hiblaayo ila qadeeya buu yiri maalinta ila qadeeya maalintii ayay u yimaadeen maalintii ayay dadkii masaakiinta ahaa iyo isagu ayay halkii qado u diyaariyay ayay ku wada qadeeyeen ay cunto ku cuneen nin aad u mutawaadic buu ahaa wuu guur badnaa saxaabigu ilaayo Ali bin Abi Talib oo aabihi reer Ciraaq uu ku yiraahdo war ninkan hablaha hasiinina uu furiin badan yahay waa mitlaaq markaasay ugu jawaabeen ta u wanaagsanaatana waa haysan ta u wanaagsanaan waayana hadduu furayo annagu u diidi mayna bay yiraahdeen inanta uu naga doono inankaasi diidi mayna bay yiraahdeen gabadh dumarku qabay kamid ahayd ayuu furay wuxuu siiyay mutca wax loo yaqaan leeltir gabadha marka la furo de carmal baa laga dhigay inanimadii ayay seegtay qiimaheegii hoos buu u dhacay waxa way nin kastoon hawaysan jirin markii hore ayaa soo hawaysanaya iyaduna hadayna aqli buuran lahayn inay qiimo dhacday bay isku arkaysaa meel xun bay isdhigi kartaa inta badanna dumarka xumaada waxba loo badiyaaba dumarka uu guriyuhu ka soo dumaan ayaa loo badiyaa kolka gabadhii markii uu furay de gabadhad furtay waa inaad ad leeltir wax la yiraahdo ad siiso wax adduunyo ay ninkii furay ku ilowdo waa in la siiyo leeltir baa la siiyay gabadhii leeltirkii baa loo qaadan waayay intay la eg tahay lacag aan aqli gal ahayn intay la eg tahay ayuu siiyo loo dhiibay gabadhii baa la yiri bal warano markaas ay tiri waa mataa'un qaliil min mufaraqati rajulin kareem nin sharaf leh oo iga fogaaday iyo in yaroo bariba dhamaan doonta oon ka helay weeyaan bay tiri laakiin ninka sharafta leh ayaa iga qiimo badnaa leeltirkan boqol dumar way gaadheen baa la yiraahdaa dumarka uu guursaday saxaabigani boqol way gaadheen wuxuu oran jiray ilaahay waxaan ka xishoonayaa anigoon beydkiisa xajka u xajiin ama aan u umraysanin inaan ilaahay hortago waan ka xishoonayaa ayuu oran jiray 25 sanadood ayuu lug ku soo xajiyay lug kiyo geela kuwa ugu qiimaha badan uu helayo iyo fardaba 25 sanadood ayuu xaj lug saxaabigu soo gutay baa la yiraahdaa ninka Yaziid la yiraa ninkaasi nin aad u adab daran buu ahaayo dhaqan ahaan marka la eego taariikhda wax un baa laga sheekeeyaa wuu faashan jiro quraanku ka faashan jiray quraanka intuu musxafka soo kala qabto ayuu oran jiray boga midigta sadarka afraad ama shanaad waxa ii soo baxa ayaan maanta yeelanaya maalin buu intuu kitaabkii quraanka u kala furay ay sidaa u kala furay waxa u soo baxay wakhaba kullu jabbarin anid ba u soo baxay wakhaba waxa ayaan darnaaday kullu jabbarin nin kasta oo isweyneeya anidin oo hadana madax adag allah kaasi ayaan darana halku gali doonaa halka markuu marayo musxafkiiba uu jeexay baa la yiraahdaa gabay buu ka dul tiriyay la yiraa idha ma ji'ta rabbaka yawma hashrin فقل يا رب مزقني اليزيد إذا ما جئت ربك يوم حاشرين فقل يا رب مزقني اليزيد قبل أيك دول تري وحوري إذا ما جئت ربك يوم حشر ما لنت ليس سواء أرورنا يا قيامة مركز ربك أتماته فقل واحد يا رب مزقني اليزيد إلهي يزيد باي سو شرشري كل بيقول إلهي هل كاسو مري كل كا نينا نكور رمي كرنا ما أهين وأنك صحابيا سمي النبي محمد أووه عليه الصلاة والسلام هل كا أيو صحابي وسنتا أيو كوجيريودي تاريخ ذروحي أهيد بال يراهدا كوبي كنتنكي مالها أي تاريخ ذو أهيد أدو كنت ميي وربضن باكو جرا تاريخ ذا أفريا كنتنكي باي أهيد أفريا أفرتنكي باي أهيد بان دونيا شنيا أفرتنكي باي أهيد سغاليا أفرتنكي باي أهيد كنتنكي باي أهيد كوبي كنتنكي باي أهيد سديديا كنتنكي باي يا وربضن باكو جرا
saxaabigu nin aad u deeqsiya buu ahaa mutawaadicna uu ahaan jiray welibana